milay wanaagsan saaxiibayaal waa kal kale iyo barnaamijkeenii taxanaha sooyaalka soomaaliyeed muuqaalkanna waxaad kaga bogan doontaa qaybo kooban oo ka mida taariikhdii abwaan xaaji axmed fiqi mid ka mida sugaandhaadhigii figta sare uga jiray foolaadka sugaanta geyiga soomaalida haddaanuba ahayn kan koowaad wuxuu ka mid ahaa ragga aan diriqsanee maansada hibada dhabta ah loo siiyey gebyaa magac weyn gebyaa markuu soo muuqdo loo wada joogsan jiray eebbe godka ha u ileeyee abwaan nabadoon xaaji axmed fiqi oo soomaalida dhexdeeda caan uga ahaa naanaysta ah ilka dahab wuxuu ka mid ahaa samataliskii aadka looga yaqaanay gobollada mudug galgaduud iyo dowlad deegaanka soomaalida waxaase magaciisu gaaray bari iyo galbeedba taasoo taarikhyahanadu u aaneeyaan sugaantiisii badaha kala duwan ahayd ee uu col iyo nabadba ku jahayn jiray abwaanku sida loo badinayo waxa uu ku dhashay gobolka mudug gaar ahaan meel aan sidaa uga fogeyn magaalada gaalkacyo waana halka uu ka bilowday sooyaalkiisa taariikheed xaajigu wuxuu ahaa reer magaal xarragatooy ah wuxuu dhoosha gashaday dahab iyadoo aanay dadkuba aqoon waana halka ay ka raacday naanaysta ah ilka dahab abwaanku wuxuu leeyahay sugaan caan baxday oo soomaalidu gabay iyo maamaha intaba u adeegsato sida tudacaan lagala baxay mid ka mid ah gabayadiisa garnimaan aqoon xaajadu galaba waa eex abwaanku sidaan sheegnayba wuxuu ka mid ahaa ragga sugaantooda sida weyn looga dambeeyey waxaana taa tusaale u ah in rag reer waqooyi ah oo beelaha dhulbahanta iyo isaaq ka soo jeeday ay mar wax iska weyddiiyeen suugaanyahankii mudug ku dhaqnaa islamarkaana waxay isla sheegeen laba nin oo gabayadooda heerka sare ka gudbeen midu waa nin la yidhaahdo asmar xasan dari waxa ayna ka soo qaateen gabaygiisii ahaa hadday dunidu tiir leedahoo lagu tanaadahayo oy niman ku taajirahayaan taallada aan joogno tolmoonihii maxamed baan laga taxaabeen ninka kale waa xaajilka dahab waxa ayna xuseen mid ka mida gabyadiisa kuwa uga caansan kaasoo ahaa haddii laba gubeer xarbido oo goob la kala xaarto gablan wila'aaneed ragga waa wadagelaysaa waa loo gudboonaanayaa garab bannaaraan gardarriya aabaa ninkii godlanu diidaa geeridu xisaab ma leh hadday gobcilowdaa waxaa xaqiiqo ah haddii ay colaadi dhacdo oo foodda la ysdaro inaan ninna wiilu dhalane khasaaruhu labada dhinacba gaarayo oo sidaa xaajigu sheegay ay tahayba xaaji axmed fiqi ma ahayn keliya gabyaa ee sidoo kale waa oday xaajada iyo xalka aan looga maarmin waa afmaal haddii xalku adkaado xarafka maansada xayndaab walba kaga gudba markaan abwaanku wuxuu hormuud u yahay duqooy daarooda oo loo saaray inay ku baxaan beelaha leelkasa iyo majeerteen oo dirir dhex martay islamarkaana dhowr gooboodoo hore isku fara saaray kolkay xaajadu murugtay maarana loo waayey labadii beelood xaajigu waxa uu ogaaday in aanay hawshaani dagaal fursan doonin waxa uuna halkaa ka tiriyey gabay bogogga hore ee taariikhda lagu daabacay gabayga waxa uu ku faalleeyey xaajigu waayo aragnimada uu leeyahay colaad waxa ay tahay iyo dhagxumada dirirta iyo saamaynta ba'an ee ay reebi doonto haddii dayrka walaalaha ay isdilaan waxaana dhacay wixii uu ka digey gabaygaas waxaa ka mid ahaa wuxuu yidhi weli curadyadiinnaan birta cadow la taabsiine calooshiiyo mudkiinnuusa gelin caarad muusluhuye callaal liigle baydunu arag iyo caydho galabeede cabbanaasho iyo geeri baan caado kuu noqone ciilkii horeba kii dambaan kugu cusboonayne cambar kuu dhashiya mayd bataan cad ugu saanyoone sidoo kale abwaanilka dahab wuxuu ahaa nin colwad ah oo aad looga haybaysto hadalkiisana aan la dhayalsan jirin mar baa jidhay niman dhallinyaro ah oo reebicyahana ay qori ka xadeen dabadeedna uu u gardhigtay haddii la meermeeriyeyna waxa uu tiriyey gabay ay ka mid ahaayeen tuducyadan waa wixii qabaalkii jabiyi qoladii waagii waa wuxuu fidaargu qorgaayay qalabka kiisa waa wixii qoryo caddii horii qoorgays dhigay waa wixii qorof iyo dibiro maydka loo qubay waxaa ceelo cadqiiqa oo kalay waa qaawin gabareed wallee ama qumaataa jiroo qorigii laysiiyey ama qaylo iyo waa waray qooman ku abaade oo laba qabiiloo isjecel qaraxday baaruuddu taasoo keentay in qayla yeerto qorigiisina si degdeg ah loogu keeno kol kale xaajigu waa nin aakhiro oo aan moogayn in adduunku aanu macno lahayn waxaana taa muujinaysa suugaantiisa waa kan gabay kale oo xeel dheer oo uu abwaanku maalmaha adduunka ee kooban uu ku faalleeyey wuxuuna yidhi nin adduunka toogadii bugtay oo tigimada u aasay oo tiirdhexaadku u muday taagan yahay haatan oo 10 nin loo kiciyey iyo inamo taageera oo bele intuu taa ka koray loogu tegi waayey
timahoo caddaadiya ma arag toban jirkaygii tashi ma laha oo ree adduuntaba tus weeyaane markaad adigu tarantooriso yaa taab la jebiyaa buu yidhi wuxuu abwaanku allaha u raxmadee allaystay sannadkii toddobaatemeeyadii isagoo inooga tegey gabayo iyo geeraaro dhaxalkeenna suugaaneed wax weyn ka taray waxaana xaajiga lagu aasay magaalada galnisoor